wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka fiid wanaagsan oo idinkaga yimaada channelka Qarri Joqod studio-giisa dhexe ee magaalada Nairobi waxaana ahay miski Maxamed Caate qodobada aad ku maqli doontaan wararka fiid wanaagsan waxaa kamid ah xiisad ka dhalatay gabar shalay lagu dilay magaalada Qabri Dahar dibaanada Soomaaliya oo kulan ka yeelanaya hindis sharciyeedka shirkadaha shisheeye iyo Mareykanka oo sheegay inuu baarayo in dad shacab ah lagu laayay duqeyn ka dhacday magaalada Bariire daawadayaal qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan wararkeena fiid wanaagsan haatan u diyaar garooba xiisad ayaa ka dhalatay gabar shalay lagu dilay magaalada Qabri Dahar ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo dul istaagay Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi wararka naga soo gaaraya magaalada Qabri Dahar ee ismaamulka Soomaalida ayaa sheegaya in halka ay ka jirto xiisad ka dhalatay gabar 20 sano jir ah oo meydkeeda laga helay magaalada Qabri Dahar Tayasiir Umar Maxamed oo ah gabadha meydkeeda la helay ayaa la sheegay in markii hore ay qabteen ciidamada maamulka halka ka jira kuwa oo markii dambe ehladeeda ku wargeliyay in gabadhoodii ay istishay waxa la sheegay in xalay meydkeeda gabadhan la dhigay isbitaalka ciidamada militariga ee ku yaala isla magaalada Qabri Dahar baaritaan kadibna sida ay eheladu sheegeen in la dilay oo aysan iyadu gacanteeda isku dilin lama oga sababta loo xiray markii horeba iyo sababay dhimashadeeda waxaase la sheegay in arrintan ay ka dhacday xero ay ciidamadu ku leeyihiin magaalada Qabri Dahar gabadhan oo lagu magacaabo Tayasiir Umar Maxamed Cilmi Sahal waxa ay jirtay 20 sano wali ma aysan guursanin waxayna u shaqeynaysay dawladda hoose ee magaalada Qabri Dahar Maxamed Xiis oo adeer u ah gabadha ayaa sheegay in la dabay isaga oo beeniyay wararka sheegaya in ay iyadu istishay maamulka dawladda deegaanka ayaan wali iyagu wax war ah kama aysan soo saarin arrintan ku saabsan muran iyo xiisad ka dhalatay geerida Tayasiir oo markii nolol ugu danbeysay ku jirtay gacanta ciidamada maamulkaas xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay hindis sharciyeedka shirkadaha shisheeye warkaasi waxa inoo akhrinaya afakaado Maxamed Axmed xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah waxay kulan ku leeyihiin magaalada Muqdisho xarunta golaha shacabka xubnaha golaha shacabka ayaa sheegay in ajandaha maanta hor yaala golaha uu yahay akhrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka shirkadaha company law kaasi oo xilligan dalka muhiim u ah hindisa sharciyeedkan shirkadaha ayaa maanta laga akhrin doonaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyadoo ay kulankan ay ka soo qaybgali doonaan guddoonka golaha shacabka hindisa sharciyeedkan ayaa la soo marin doonaa nidaamyada kala duwan ee akhrinta sharciga dalka 12 arday ayaa ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay wadada weyn ee Dika wadadaasi oo isku xirta ismaamulka Gaarisa iyo magaalada Nairobi warkaasi waxa inoo akhrinaya Faysal Bishaar Maxamed Faysal Aligo 12 arday oo wax ka baranaysay dugsiga sare ee gabdhaha Lemuru ayaa loo qaaday isbitaalka kadib markii ay ku dhaawacmeen shil gaari ayagoo ka yimid iskoolka shilkani ay ku waxyeeloobeen ardaydaasi ayaa ka dhacay wadada weyn ee Dika laba ka mid ah ardaydaasi ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac aad halis u ah waxaana loola cararay isbitaalka Aqan ee magaalada madaxda Nairobi wararka qaar ayaa sheegaya in shilkaasi uu ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada booliiska ee dalka darawalkii kaxeynayay baaska ayaa la sheegay inuu lumiyay kontaroolka ama xakameynta gaariga Faysal Bishaar Faysal Aligo wararka fiid wanaagsan Nairobi Mareykanka ayaa sheegay inuu baarayo inay dad ku dhinteen duqeyn maalmo ka hor ka dhacday deegaanka Bariire ee Shabeellada Hoose taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa war ka soo saaray weerar dhawaan ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose weerarkaasi oo khasaare dhimasho iyo dhaawac sababay howlgalkaasi waxa fuliyay ciidamo isugu jira Mareykan iyo Soomaali ciidamada militariga Mareykanka ayaa sheegay in si dhab ah ay u qaadanayaan wararka sheegaya in dad rayid ah lagu laayay weerar uu Mareykanka taageeray oo ka dhacay Soomaaliya kaasi oo ka dhanaa al-shabaab waxa lagu yiri war qoraal oo ay soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika waynu eegi doonaa akhbaaraadka ku saabsan dhacdadani hadii aynu helno eedeymaha in ay yihiin kuwa sax ah waxa taliska Afrika uu qaadi doonaa talaabooyin xiga ku haboon waxa lagu yiri war qoraal oo ay soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika waynu eegi doonaa akhbaaraadka ku saabsan dhacdadani hadii aynu helno in eedeymaha ay yihiin kuwa sax ah waxa taliska Afrika uu qaadi doonaa talaabooyin xiga ku haboon
sidoo kale taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa isla qoraalkan oo ay soo saareen ku sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan xog kasta oo la xiriirta dhacdadani oo ay ku jiraan dhinacyada ay arintani khusayso. Mareykanka ayaa si dhow ula shaqeynaya ciidamada militariga ee Soomaaliya asagoo gacan ka siinaya dagaal ka dhan ah kooxaha jihadoonka ayaa lagu yiri wararka ka soo baxay taliska. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Afgooye ayaa sheegay in la dilay 5 qof oo beeraley ah intii uu socday howlgalka oo dhacay habeennimadii Arbacada. ugu dambeyntiina daawadayaal dawladda Kenya ayaa sheegtay in uusan ka jirin cudurka Ebola gudaha dalka. warkaasi waxaa mar kale inoo dul istaagay Faisal Bishaar Faisal Aligo. wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka Cecily Kariuki ayaa sheegtay in ka badan 260 sarkaal oo caafimaad ah ay ku sugan yihiin dalka si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa cudurka Ebola ee laga soo tibiyay wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Mrs. Kariuki ayaa sidoo kale sheegtay in la baarayo dadka dalka ka soo galaya dhinaca Busia, Namanga iyo Malapa. Xukuumadda dalka ayaa walaac ka muujisay in cudurkaasi uu faafo oo uu soo gaaro dalka. dhawaan ayaa ahayd markii 17 qof ay Congo ugu dhinteen xanuunka Ebola. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in inta la diiwaangeliyay ay u dhinteen in ka badan 11,300 oo qof maadaama ku dhawaad kiisas dhan 29,000 la soo sheegay. waa tahay daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay wararkeena fiideo wanaagsan oo idinkaga imaanaya channelka Qarri Joqod. intaynu ku kulmi doono warkan mid ka xiga waxaan idinkaga tagaynaa dhammaan bahda Qarri Joqod oo idin leh sida iyo amaana Allah.